afhayeenka hore xisbiga mucaaradka wadani Ibrahim Mahdi Buuba oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa hambalyeeyay afhayeenka cusub ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani uu soo magacaabay wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu ku faracsan yahay isku shaandhaynta uu sameeyay gudoomiye Ciro waxaana hadaladiisi kamid ahaa aad baan islaamaya saxaafadda iyo bulshada reer Soomaaliland وأكلوا سلام يا مضحنا حسب الوطني يو تاجر شخص بدي يجبد ملك استوى يشوفان سؤال شيء وديسين أفريقيا حسب الوطني اللي يقول شيء ما أنت هذا درك كعبرة أما كلمة كيل هذا هرتانو وحناها أساس شيء مركي وقركها حسب الوطني كورنا وحنا نسقوها يقعد قربكي كلا مركي وعد كلا شبي كدي مركي دعوتي محكمة الإسلام قالي وحنو سمعنا يساكون حزب أوركا وطني أو سديد الطبع أور حزب الله صوت ترتمي نسيونا إنكم بنستين وحزب قرن نهضة بوشة وأنا بسنة هاي بوشنا مركتها إن قبل حد كلها حزب الوطني وقالي كل قضية حزبك مدة وحزب الأفريقيا هو أنا بالشدة رئيس المال الجديد بدبه ويكون هيسي ماشي أنجليزي يو تعب كأنجليزي انتبه وحنا دي شيء يعني سياسة طيب قريسوديب ما طلعت حزبي أفريقيا كيسي اللي بوريتشي صاحب كبرخد وكو عمليين يا وكسو دوين يا gudoomiyaha oo go'aan ka qaatay xisbiga isla laftigiisa uu ku ambaleenaya wax cudura iyo wax aanu arko maanta in ay dhibaato tahay ama dhinacayga aan saluka muujinaya midna ma jirto waxaan leeyahay gudoomiyaha soo shaqeynayna waad ku mahadsan tahay barkadna waxaan rajeynayaa inaanu hadii la yiraahdo shaqada iyo xilka loo dhiibay uu gudan doono ilaahay inuu sakhir doono soo baab kale iyadu marka mathalan su'aasheedu ma meel aan xisbiga kaga baxay ama xubinnimadii fulinta iyo golaha dhexe midnaba ma jirto si kastaba haatee Ibrahim Mahdi Buuba ayaa muddo dheer soo ahaa afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani ha yeeshee maalintii shalay ayay ahayd markii isku shaandhayn uu soo saaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo xilkaasi ka bedelay waa Maxamed Andar Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa.